السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا channel keena videogan cajaa'ib inta jeer aan isku try gareeyay inaan duubo I think 4 jeer aan duubay camal oo aan aakhirka ilaahay kan ha iga dhigay kan hagaagaya. Horta ilaahay ha idin xifdiyo walaalaha nagu xiran channel keena ee ummadda Soomaaliyeed ee muslim walba meesha ay joogaan. Walaalo badan ayaa su'aalo isoo weydiiyay maxay istighfaarta u shaqeyn la'dahay. wax badan ayaan sameynaa istighfaarta waa inoo shaqeyn la'dahay. qofka kalena wuxuu isoo weydiiyay tikri badan oo kala duwan ayaan maqlaa keebaan sameeyaa confused ayaan ku noqday. marka su'aalo waxa waaye oo macquul ah mar aan isweydiin karno. su'aasha koowaad inkastoo horta aan sheeqad ahayn su'aalahan ay ku fiican dadka cilmiga leh in la weydiiyo laakiin aniga baaritaan nafteeda ahaan gooni u samaystay waxaana baaritaankaas kala kulmay in marka hore istighfaarta ilaahay la weydiisanayo ujeedadaada maxay tahay. ujeedada waxay tahay marka horeeto inaad dambi dhaaf ilaahay weydiisato. anaga waxa way dambi dhaaf cafiskaas uma sameeyo in aniga personally ani qof ahaan cafiskaas uma sameeyo inaan wax ku helo balse ilaahay inuu subxaanahu wa tacaala igu cafiyo iyo oo xasilooni wadnahayga helo qalbigayga uu qaboojiyo ilaahay deganaansho aan helo. wixii dambi ah sida xan iyo hees dhageys iyo waqti dhumis iyo waxyaalaha macnaha lahayn waan yareeyaa. tanu adag waa xanta. marka maalin ayaan isxisaabiyay inta jeer oo aan qof ka hadlo anigoo iska afgaaban oo iska jecel danahayga inaan ku mashquulo haddana waxaan is arkaanoo dhiiqa badan galayo oo qof walba wax ka sheegaya qof kale aad dhehayso qofkaas waa gaaban yahay ayaa xan ah iska badaab waxyaalaha anaga maalin kasta aan dabaalano. marka xanta waa u adag tahay dambiyada ugu badan aan galan waayo carabkeena aad ay u adag tahay laakiin carabka muxuu ku fiican yahay marka wuxuu ku fiican in la mashquuliyo waxyaalo kale lagu mashquuliyo. waxyaalaha ku mashquulin karta maxaa waaye waa dhikriga ilaahay taasna faa'iido badan ayaa helaysaa. xanti haddii aad joojisid qofka xitaa oo raba inuu waxan kuu soo sheego ama adaa u sheegtid waxaa lagaa qaadaya boring ma kaa helayaan qof interesting ma noqonaysid qof xiiso oo loo soo xiiso qabayana ma noqonaysid. taas anaa hubo waxaa lagaa ordayaa waana ku fiican tahay hadii lagaa ordaya because xan ma haysid ama xan lama wadid qofna waxa ugu daran marka dad walaalo xanka naga jooji waxaan naga jooji mar rabno qof inaan ka hadalno danahayga aan ku mashquulno waa lagu nacayaa. naftana way jeceshahay adiga hadii maanta lagu keeno sheeko yar oo macaan oo juicy ah maxaa dhahaysaa waxaa dhahaysaa oh my god maxaa dhacay ii sheeg waa bani aadan anaga nahnay waqtiga waa ogahay laakiin carabkaan ku mashquul isku taxalluuji inta isku taxalluujin karto dambiga inaa yareyso. group aan ku jiro ayaa gabar oo barakeysan ma sha Allah maalinta waxay akhrisaa 5,000 oo istighfaar ah 2,000 oo saliga nabiga ibraahimiya 1,000 oo aayatul kursi ah 500 oo xawqala ah suuratul baqara qofkaas ii sheeg waqti ma u helaya inuu xan iyo waqti dhumis uu sameeyo waa maya. marka su'aashan ku soo laabtay dambiga aan iska yareyno cafisna la cafinayo ayaa nimco leh istighfaarta fadligeeda ayay wadataa nicmadeeda ayay wadataa laakiin shuruudaheeda la imaan youtube ka baar istighfaarta shuruudaheeda rajana ha dhigin shuruudo badan ay leedahay ilaahay ha ka rajo dhigin markasta weydiiso ha joojin laakiin naftaada horta dib isugu fiiri hadaa isdhehaysa aniga wixii muraadkayga ma aqbalin waxyaalaha horta aheli maxaa helaysaa nimco maxaa already haysataa nimcayaasha ilaahay ku siiyo horta ma u jeedaa kuwaas horta bal fiiri kuwaas ku mahadceli ilaahay kuwaas kadibna waxaa samaysaa dambigaaga yaree salaadaada badi hadaa muraad leedahay qiyaamul leyl u kac qiyaamul leyl ha yareysanina qiyaamul leyl nolol dhan bedesha ha yareysanina 11 qisan soo wada hadda videogan sheeko waxa ku jirta cajaa'ib la gabar baa dhib weyn la soo wajahday oo dhib kala kulantay nolosheedii maxay sameysay markaas ilaahay muxuu ugu bedelay muxuu siiyay qofka dhibaataysan sheeqa wuxuu dhahay hadda ka horan dhageysanay wuxuu dhahay hadii dhib ku haysato ay dhahaysid qiyaamul leyl ma u kaco uma tukado dhib weyn kuma haysto. horta ilaahay qofku uu rabo uu la raadsadaa laakiin ilaahay bari sheekooyin badan qiyaamul leyl ayaan dhageystay noloshaada way isbedelaysaa hadaa ilaahay uu barido wax kasta oo kula soo wajaha ilaahay bari dhib kasta ku haysta ilaahay bari dambigaagana yaree carabkaasna ka adkaaw. su'aasha labaad dikrigee sameynaa way fara badan yihiin waxaan ku dhihi lahaa adigu wax uun samee hal wax intaa sameyso ku dhig week hal wax samee week ku xiga dikri kala samee week ku sii xiga dikri kala ku sii xiji laakiinse istighfaarta marnaba
هكهرن ما نقول استغفار بقول شن بقول كن استغفار سمي استغفار وحواي ومرو لا نظيفينيو jirkaaga nadiifinaysa ilaahay dambi dhaaf weydiisanaysa wixii kale tan kadibna jidka u banaysay wixii ku soo socday nimcooyin ku soo socday baa jidka u banaysay mara wasaq ah mar barfuun kuma shubi kartid waa sidaas camal taas horta istighfaarta ha noqoto number 1 saan ila tahay istighfaarta maalintii 100 500 kun kadib ku dar waxa ku dari kartid la hawla wala quwwata illa billah ibrahimiya saliga ducadii nabi Yunus maalinta jimcahan saliga nabiga ugo saaniga sameeyo saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ugo maalinta jimcaha marka ha is computer iska dhigin wiigi hal dhikri qabso laakiin marba istighfaarta sameey saas aniga aan nafteeda aan u sameeyaa qofkii xoogo wareersan baaritaan waa gali kartaa adiga ama saas sameey aan sameeyo laakiin waa laazim istighfaarta marba inaan sameeyo haba joojin dhikrigan maalin walba dambigeena waa badan yahay marka cafis weydiiskeena waa inuu bataa anyway ramadaankii waa noo soo dhow yahay waxba kama harin ilaahu nabad nagu gaarsiin saddex duco ayaan sheekh dhageysanayo wuxuu yiri bilaaw hadaba ramadaanka taa la gaarin waa allahumma atiq riqabana min an-nar allahumma ballighna laylatul qadr rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul alim saddexdaas ilaahay naga badbaadi naarta oo naga xoreey ilaahay naga gaarsiin habeenka laylatul qadr si aan ka faa'iideysano ilaahu naga aqbal camaladayda dhan adigana waa maqashaa waxban waa ogtahay marka saddexdaas duco allahumma atiq riqabana min an-nar shaashadan soo dhigaya fiirsada waa saddexdaas duco hadaba iska bilaaw ilaa ramadaankana iska wad saas uu yiri sheekha ma sha Allah ducooyin waxa way haba joojin ba carabkaaga ramadaankan waxaan u baahanahay inaan liis ducooyin aan sameysano aniga ayaan tus liiskayga liis marba iska wanaagsan yahay inaan leedahay liis ducooyin ah ramadaan hadee tahay ama hadaysan ahaynba wixii aad meel duco ah ku aragto oo baahi u qabto sawir ayaan aniga qaataa kadibna waxaan la soo baxaa markaan rabo inaan duceysto habeen iyo maalinba especially habeenkii tahajjudka baahideedu way fara badan tahay sida qof walba aan filayo waxaana alla weydiistaa waxyaalo maskaxdeeda ka waaweyn oo aniga macquul ila ahayn laakiin alla agtiisa ay ka tahay basiid why not yaa idiida inaan dalbado ama ilaahay ka baryo inaan noqdo maalqabeenta Afrika oo dhan u sareyso oo waliba xalaal aan ku helo oo xisaabtida aakhirna ilaahay ii fududeeyo oo ummadda dhan ay hoggaansamaan yaa idiida ducadaas wax walba waa ku duceystaa ducada tan u weyn tay ka sii fiican tahay waxyaalo weyn baa aniga ku duceystaa saas idinkana sameeya liiskaanay waxa ku jiro ducooyin iyo alla xusid mideeda kale waqtigeena aan ka faa'iideysano ramadaanka waxa la daawadaa musalsalo turba la ciyaaraha waqtiga la isaga wax badan oo anano hadda ma la sameeyaa ma aqaan laakiin waagii Soomaaliya aan joogi jiray waa la sameyn jiray carabaha waa la sameeyaa dad badan ayaa sameeya waxaan laakiin bil cibaado way bishaan waxa waa every minute oo soo gala ka faa'iideysto anaga aan ka faa'iideysano kulligeen waqti dhumis aan caadi ahayn ay ramadaan ka dhaco I don't know why waqtigaan ramadaanka waqtigii ilaahayna soo gaarsiiyay ilaahay nafta nagu soo gaarsiiyay ramadaanka waa nimco weyn dad badan ayaa ilaahay soo gaarsiinay nimcadan dad badan ayaa dhintay oo ramadaankan soo gaarin marka alxamdulillah nimcadan aan ka faa'iideysano waqtigeena sheekooyinkan maanta aan bilaabano marka xogo waan ku dheeraada amaleysa raali ahaada aan sheekooyinkan aan bilaabano sheekada koowaad qofka koowaad wuxuu yiri hadaad ka fikirayso in akhrinta suuratul baqara aysan faa'iido ku lahayn ama aysan ku keenin waxa aad rabto runtii waad qaldan tahay waxaan ku xaqiijinayaa in aad wax weyn u sheegayso ama wax ku dhaafi doonaan akhri suurada adigoo niyad wanaagsan iyo ujeedadaaduna ha noqoto inaad barako ku hesho noloshaada dhinac walba markaad dhameysato ilaahay weydiiso inuu kuu fududeeyo waxa aad rabto iyo muraadkaaga hadii ay khayr ku tahay ama inuu kugu bedelo wax ka khayr badan noloshaada oo dhan way isbedeli doontaa gudaha iyo dibaddaba quraanka albaabada nolosha ayuu ku furaa hadii aad si sax ah u isticmaalayso number 2 qofka labaad ma rumaysan karin sida saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ay si degdeg ah ilaahay albaabada irsaaqada uu ku furi karo waxaan ku jiray xaalad adag oo dhaqaale deyntu way igu sii badatay shaqadana waan gabay oo way istaagtay markaas ayaan maqlay qof sheegay in uu cafid weydiistay ilaahay oo 6,000 oo jeer oo saliga nabiga alayhi salaatu wasalaam uu ku daray galab jimco ah kadibna ilaahay risq ugu keenay meel uusan ka filanayn waxaan is iri maxaa anigan u tijaabin waayay
صلاة الظهر كبعد صدقن أيام أبلابة صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلبي أو حصلون أو سب حدا وكرصونها إن إلهي يجي جواب دون مركز أو عند حيو وحن دريمي نفس يابله أو قلبي يجرا سيدي عليسك إسارنا أو دن أو يجدعين دقيقة ير كهر قرح أنت صدقين وحن دمي لح كن أجر أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم وحن أفريسته إن عنده عيسته أنا أوي أو قلبي يجرا إلهي شوية إلى بان ku dhaartay markii la adimay salaada maqrib waxa isoo wacay qof aan waligeed ka filaneyn oo aan iska iloobay wuxuu igu yiri account-kaaga bal fiiri waxaan ku soo diray lacag aad istaahishay inaad hore u heshay ahayd waan furay bangigeygii subxaanallah lacagtu waa intii laygu lahaa exactly waxaan sidee mooriya ku jirtaa tan iyo maalintaas galab walba oo jimco ah waxay ii noqotay waqti gaar ah oo gooni aan u dhigto oo aan ku saliyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa baan ku dhaartay tan iyo maalintaas risqeygii iyo fudeed waligay igama joogsan qofka saddexaad sheekadan waa sheeko cajaa'ib leh qofkaneeto waa qof dhib weyn ku jiray ilaahayna uu ka saaray fiiri wixii samaysay dhedheel waxaan kuma imaadaan waxay tiri waxaan ahay hooyo iyo xaas 7 caruur leh iyo ninkeeda muddo in ka badan 20 sano waxaan ku noolayn guri yar oo ka kooban hal qol iyo barxad yar ninkaygu wuxuu ku shaqayn jiray darawalnimo isagoo u shaqaynayay ninka guriga naga ijaaro awalaan noodkeena mushaharkiisana aad buu u yaraa maba gaari jirin bisha dhexdeeda laakiin wax walba way isbedeleen markii ninkii landlordka guriga naga ijaarayay uu dhintay halkani waxay ahayd bilowgii dhibaatooyinkeena dhan ninkii dhintay wiilkiisii ayaa gurigii la wareegay shaqadii uu ka eriyay ninkaygii wuxuuna nagu amray inaan guriga ka baxno isagoo og inaan meel kale aan haysan maalmo adag ayaan soo marnay wax walba way nagu adkaayeen xitaa baahida oo basic ah oo yar xataa oo nolol maalmeedkeena ah waa nagu adkeyd ma heli karin ninkan wuxuu nagu bilaabay dhibaatooyin aad u waaweyn aad buu noo cadaadiyay xitaa wuxuu naga jaray korontadii anagoo guriga weli aan deganahay cagba buu noo saaray isagoo nagu riixayay inaan ka baxno guriga laakiin hal shay marnaba kama quusan rajada Allah subhanahu wa ta'ala habeen iyo maalin ilaahay baan baryay suurat al-baqara maalin kasta ayaan akhrin jiray waxaan akhrin jiray also istighfar si joogto oo zaid ah carabkayga maba ka saari jirin salaada sujuudana waa ku dheerayn jiray oo ducooyin badan ayaan ku akhrin jiray salaada sujuuda ilaahayna waxaan ka bari jiray inuu arrimaha noo kala furfuro oo noo sahlo xaaladani aad bay u liidatay maanan haysan lacag aan guri kale ku kireysano markii dambe aniga iyo ninkayga waxaan go'aansanay inaan guri iska raadsano meel banaanka magaalada ka baxsan maadaama kiradeedu uu raqiis yahay laakiin markii uu ninkaygii shaqo cusub uu helay ninkii oo uu wali gurigan deganahay ninkii uu u shaqaynayay ayaa wuxuu diiday in aan magaalada banaankeeda u guurno maadaama aan shaqada ka fogaanayno wuxuu noo sheegay in shaqada aad uga fog tahay meesha aan u guureyno balse wuxuuna siiyay lacag aad u badan aan guri ku gadano subxaanallah guri lacag uu siiyay guri ay ku iibsadaan markii aan maqlay warkan dhagahayga maqalkiisii aamini waayay aniga oo xitaa baahida nololeed dib ku qabnay wixii caanihii shaahi iyo wixii aan weynay ayaa haddana guri ilaahay noo fududeeyay inaan helno waan sujuudo oohin iyo mahadnaq ayaan kula dhacay ilaahay hortiisa habeen kasta suuratul baqara ayaan akhrin jiray salaada tahajjudkan waa tukan jiray isla maalintaas aan akhriyayna ninkaygu wuxuu helay farxad weyn wuxuu helay shaqadaas cusub oo mushahar fiican leh nin saaxiib la ahaa ninkii guriga naga ijaari jiray odagii dhintay nin saaxiib la ahaa ayaa xaaladeena ogaaday wuxuu si filaan ah u siiyay ninkaygii shaqo aad u wanaagsan habeen aan farxad la seexan waayay waxaan dib uga fikiray xaaladda aan ku sugnayn wiilkii landlordka ahaa guriga naga ijaarayay wali gurigu nagu cadaadinayay laakiin ninkaygii booskiisii ninkii kaabihiisa ahaa garab fiican ayuuna siiyay ugu dambeyn waxaan gadanay guri weyn oo qolal badan leh marti ayaan hadda marti qaadi karaa anigoo qajilayn caruurteyda waxay heleen qolalkooda u gaar ah ninkayguna xitaa wuxuu iibsaday gaari taasoo nolosheena aad u fududeysay ninkayga kaabihiisa cusub aad ayuu noo caawiyay inkastoo uusan muslim ahayn uuna ka soo jeedo wadan kale maalin kasta waan u duceeyaa waxaan ilaahay uga baryaa inuu qalbigiisa u furo islaamka ilaah baan u mahad celinayaa waa isaga kii wax walba inoo sahlay alxamdulillah sheekadan sheeka aniga waxa way horta i cajabisay because gabadhan dhib weyn ayay ku jirto iyada caruurta si ilaahay intee kala aadaysaa ilaahay u bay barada habeen walba u taagneed suuratul baqara akhrineysay
ducooyinsanaysid sujuudda ku baryaysid dhib hadday ku haysato taas samee dhib hadday ku haysato ha joojin baryada ilaahay qofka afaraad muxuu dhahay waxaan rabaa inaan idinla wadaago qisadeeda oo ku saabsan fadliga saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam marka hore waxaan isku arkay xaalad aad u adag waxa isoo wajahay imtixaan weyn cadawgeygana wuu badnaa oo waxay ila maaganaayeen dhagar inay bool iga tuuraan waan daalay waxaan dareensanaa inaan marnaba ka bixi doonin dhibkan marka xigta riyadeedu waxay ahayd inaan shaqo dowladeed helo waxaan akhriyay faa'iidooyinka saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam markaas ayaan go'aansaday inaan si joogto ah ugu saliyo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam waxaan waqtigeyga u huray saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam markii aan meel u socdo markii aan shaqo aadayo markii aan seexanayo intaan seexan ka hor intaan soo kacay kadib mar kastaba carabkii waa ku hayay maalin walba aan ku celcelin jiray ujeedadeedu waxay ahayd inaan maalin kasta aan gaarsiiyo 10,000 oo jeer ama in ka badan gaar ahaan maalinta jimcaha waxaan sidaas ku waday hal sano oo dhan anigoo adeegsanaya ducooyin kala duwan marar badan waxaan Allah weydiisan jiray ilaahayow dhibkan iga qaad walbahaarkan in murugadan mar walba anigoo saliga nabiga markaan sameeyo ayaan ku dari jiray ducooyinkan markaan bilaabay saliga nabiga wax yar bil gudaheed ilaahay wuxuu siiyay 3 fursadood oo shaqo dowladeed aad baan ugu wareeray keen doortaa ilaah baan ku dhaartay kan waa waaye aragnimadeeda aniga wax ila soo wajahda nafteyda waxaa jira sir cajiib oo mucjiso ah oo ku jirta saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam taas oo aad garan doonto oo kaliya markii aad isku daydo marka qofka aniga san ka fahmay sheekadan wuu wada ilaa hal sano wax wada wuu wada laakiin maalintuu bilaabay hal bil gudahood ayuu ku helay wuxuu u baahnaa qofkan wuu sii watay wuxuu yeeltan ugu muhiimsan waa inaad yeelato iimaan iyo kalsooni buuxda oo aad ilaahay tala saarato haddaba waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad si badan ugu saliso nabiga sallallahu alayhi wasallam taas ayuu dhahay qofka shanaad subxaanallah tani waa runta dhabta ah waxaan akhriyay suuratul baqara xilligii ugu xumaa ee noloshayda mana ahayn in aanan qadka ka baxay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala idankiis waxaan la kulmay mucjisooyin badan waxaan ku jiray waqti adag waan tukanayay waxaan baranayay quraanka tajwiidka waxaan akhrin jiray suuratul yaasiin suuratul waaqica iyo suuratul mulk balse caafimaadkaygu sii xumaanayay caruurteedii waaweynaa waxay la tacaalayeen dhibaatooyin badan noloshii aad bay igu adkaatay xitaa gurigayga waa igu adkeed inaan joogo wax walba waxay ahayd rafaad iyo xujo ma jirin xasilooni ma fahmi karin sababta nolosheeda sidan ay u noqotay qof baa igu yiri akhri suuratul baqara maalin walba qofkaasi waan dhageystay taladiisii waxaan bilaabay inaan akhriyo si joogto ah suuratul baqara waxay ahayd 2019 waa sanadkii ugu adkaa nolosheyda balse ilaahay baa ii gargaaray barakada suuradan ayaan si fiican isugu xiray oo waan ku badbaaday maanta nolosheedii aad bay uga duwan tahay tii hore walina waan akhriyaa suuradan xaqiiqdii waxay isiisay xoog aan la rumaysan karin super power amal ayaan helay wax walba oo aan qorsheystana waan sameeyaa xitaa qorshayaalka caafimaad darrada iga joojisay xataa awood ayaan u lahaaday inaan sameeyo oo fuliyo hadda mararka aan akhrin waxaan dareemaa anigoo wax weyn seegay alxamdulillah qofka lixaad muxuu dhahay waxaan ahay qof wadan kala degan ruqsadeydii oo deganaanshaha oo sharciga waa iga dhacday muddo 3 sano ka hor waxaan u baahnaa inaan cusboonaysiiyo lacag dhan waxa loo baahnaa 44,000 lacagta wadankaas laakiin waqtigii wuxuu ahaa covid-ka uu dilaacay shaqana ma haysan waxaan go'aansaday inaan si joogto ah u akhriyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ibraahimiya maalin ayaan riyo ku arkay muuqaal aan dareemo iftiin waa bari in hawdaha laga qaado camal qof ayaa ii yimid oo igu yiri ku far adeeg ibraahimiyada waa badbaado 2 toddobaad kadib ilaahay fadligiisa waxaan helay shaqo waxayna igu wareejiyeen deganaanshiyo cusbaa oo la cusboonaysiiyay 4 sano ayay shaqadeeda ku wareejiyeen casharada muhiim ah ka qaadan karno uu yiri qofkan waxa waa quwada ducada iyo samirka saliga ha ka daalin sallallahu alayhi wasallam joogtay xooji iimaankaaga rajanaya ka dhumin xilliyada adag oo dhibka aan soo marayno waqti kooban haraja dhigin maalmo wanaagsan way soo socdaan degniinaha iyo tilmaamaha gaar ahaan si wixii kala ah ama calaamado aad hesho dhag u dhig ha mugnaanin iyo ku dulmarin mahadnaqna muuji marka fursado ku soo baxaan ilaahay ku mahadceli xasuuso samirka iyo ducadu waxay ku horseedi karaan nimcooyin aan la filaynin qofka toddobaad muxuu dhahay dadka dhibabkan qaba sida walwalka walbahaarka iyo naxdinta iyo baqdinta waxaan kula taliyaa intaad meel fadhiisataan akhriya suuratul baqara
ilaahay baan ku dhaartay waa suurad aad u culus waxaad ku helaysaa khayr fara badan dhammaan cudurradii oo dhan waa ka bogsan doontaa aniga waan ka bogsaday cudurrada cabsi gelinta walwalka walbahaarka panic attacks waxaas oo dhan waan ka bogsaday alxamdulilah isku day oo arag faa'iidadeeda qofka sideedaad muxuu dhahay maasha allah walaal allah mubaarak dhowr bilood ka hor waxaan bilaabay inaan tago fasalada quraanka tajwiidka aan ku baranayay 4 maalmood isbuucii aniga waxaan ahay bilow marka loo eego akhrinta quraanka marka macalinkaygu wuxuu igu bilaabay suuratul baqara macluumadeedu waxay i bartaa hal book maalin walba hal page kadibna guriga intaan tago ayaan ku celceliyaa anigoo tajwiidkayga iyo carabkii aan ku jilcinayo intaan fasalka tagin ka hor waa progress oo slow ah oo tartiib u socda laakiin alxamdulilah macnaheedu waxay tahay inaan maalin walba aan akhriyo qaybo kamid ah suuratul baqara ma awoodo inaan ku sharaxo barakada ee nolosheeda ku soo kordhisay suuradan runtii waxay ii noqotay shifaa way i bogsiisay oo qaybo badan nafteydii iyo shakhsiyadeedii kamid ah ayay ii fiicnaysay ilaahay dartiis tusaale ahaan ma xanaaqo sidaan hore u xanaaqin jiray qalbigaygu wuxuu dareemayaa xasilooni badan marka saddexaad waxa iga yaraaday walwalkii aan dareemi jiray nolosheeda alxamdulilah qofka sagaalaad qisadeeda suuradda albaqara waa mid la yaab leh waxaan dareemi jiray caajis iyo juuc fara badan gurigeygana mar walba ma habaysnayn oo iska dayacnaa anigana hore waxaa laygu yaqaanay qof nadaafad badan oo nidaam leh laakiin si lama filaan ah waxbaa isbedelay nolosheedii go'aan ayaan ka qaatay maxaan sameeyaa kadib waan isbedelay waxaan bilaabay inaan maalin walba akhriyo suuratul baqara alxamdulilah waxaan dib ugu soo laabtay sidii hore waxaan hagaajiyay nafteydii shaqadeydina si firfircooni leh ayaan u qabsadaa hadda ka hor intaanan bilaabin suuratul baqara waxaan ahaa qof caajis oo daal badan waxaan ku riyoon jiray riyooyin cabsi leh waxaan kaloo ahaa qof dayacsan oo daryeel la dhinaca nafteeda iyo gurigeyga dhammaan waxaa si degdeg ah bay igu dhaceen balse markaan bilaabay akhrinta suuratul baqara wax badan baa iska kee bedelay adinka qofka ilba ku dhaca umaleynaa talo ay dhahday talo dhab ah oo ku salaysan khibradeyda 1 akhri suuratul baqara maalin walba 2 tuko salaada witr habeen walbaba inta la seexan ama qiyaamka soo kac mar walbana cafis ilaahay weydiiso istighfaarta wad rumayso albaabada khayrka way ku furmayaan farxad iyo xasilooni bay naftaada heli doontaa xitaa adigoon sabab aysan jirin suuratul baqara salaatul witr iyo istighfaar waa mucjisooyinka ugu weyn ee nafta iyo qalbigeyga daaweysay okay qofkii tobnaad muxuu dhahay markii hore waxay iga qaadan jirtay maalmo ama saacado ama maalmo inaan akhriyo suuratul baqara aniga waxaan ahay qof ingiriiska ku hadla waxaan bilaabay akhrinteeda xilligii oo lockdownka maanta waxay iga qaadataa 1 saac iyo 10 daqiiqo inaan dhameeyo suuratul baqara xitaa waan ka dheereeyaa sheekada mishaari camal alfaasi oo si fiican u akhriya oo si degdeg u akhriya subxaanallah kaliya adiga bilow way ku fududaan doontaa waa balan insha Allah waxa sidoo kale ku dhageysan jiray taleefankeyga dhagaha intaan gashto taasoo igu caawisay inaan la qabsado ereyada quraanka oo suuratul baqara hadda waxa sidaas oo kala sameeyaa suuratul al-kahf iyo suuratul al-imran wayna ii shaqeysaa hadda waxaan akhrin karaa suuratul kahf 20 daqiiqo aan ku akhrin karaa gudahood alxamdulilah waxaan si kalsooni leh u dhihi karaa inaan xafiday 60% suuratul baqara kaliya aniga maalin walba akhrinaya oo dhageysanaya nolosheeda si dhab ah bay isku bedeshay waxaan ku jiray mugdi iyo dhibaato maanta nolosheeda aad bay u qurux badan tahay qofkii 11aad waa qofkii ugu dambeeyay qofkan wuxuu yiri waxaan la kulmay faqri aad u xun xitaa waxyaabaha ugu fudud nolosha ayaa ii goyn jirtay oo duruufadaha nolosheeda darteed basically baahideeda aad ayay u badneyd laakiin ilaahay baa igu hanuuniyay sir weyn istighfaar waxaan bilaabay inaan akhriyo faa'iidada weydiisada cafiska waxaan baaray aayadaha quraanka ee ka hadlaya iyo fasiraadooda go'aan ayaan qaatay waxaan go'aansaday inaan ilaahay cafis weydiisto si dhab ah oo daacad ah ugu noqdo marna ma joojin weydiisashada cafiska anigoo ilaahay ka baryaya rizq iyo barako markaan akhriyo suurta nuux waxaan si qoto dheer oo u fahmay sida ay istighfaartu u tahay cibaado weyn waxaan iska ilaalin jiray wax walba oo ilaahay ka careysiya waxaan dareemay nolosheedii cafis iyo raxmo inay soo galayso waxaan u duceysan jiray si daacad ah ilaahayow adiga waad ballan qaaday in haddii aad cafis ku weydiisto aad irsaaqadna siinayso oo nimco imaan nagu deeqayso waan sii waday ducooyinkan oo wadadan kama baleexamo maanta waxaan ka mid ahay dadka ugu taajirsan ayaan ka mid ahay ilaahay baa og inta maal aan haysto oo ilaahay i siiyay waxaa hareerahayga ka buuxo nimco badan iyo rizq fara badan mahad oo dhan ilaahay baa leh
isaga ayaa iga qaada faqriga oo baaba ahaa aan ku jiray maantana uu igu bedelay hodantanimo iyo nimco alxamdulilah